bismillaahi raxmaani raxiim. duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka raadiyaha wadaag. qodobada duhurnimada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn baarlamaanka Puntland oo xasaanada ka qaaday 8 mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi. dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sanad guuradii 11aad ee qaraxii ka dhacay Hotel Shamo. midowga musharaxiinta iyo safiirka Ingiriiska oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka golaha fulinta midowga Afrika. asgari ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu yahay dagaal al-shabaab ay ku qaadeen gobolka waqooyi bari dalka Kenya. gudoomiyaha maxkamadda sare oo amar duldhigay garsoorayaal cusub oo maanta la dhaariyay. akhbaaraadka caalamka ee aad ku maqli doontaan warkeenana waxaa ka mid ah baarlamaanka Iiraan oo ansixiyay sharciga nukleerka dalkaasi. wadajirku waa wada noolaasho. wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin. in aan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan. wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano. waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga. nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg. wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga. wadaag FM wadaag radio wadaag FM. duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad joogtaan. waa khamiis 3 bisha 12aad sanada 2020 waxaad soo maqasheen qodobadii ugu door corona warka duhur ee raadiyaha wadaag. markana u diyaar garooba iyagiyo faahfaahsan. baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa xasaanada maanta ka qaaday 8 mudane oo ka tirsan baarlamaankaasi. maxamed cusmaan nuur ayaa warkan ku faahfaahinaya. xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta kulan aan caadi ahayn waxay ku yeesheen xaruntooda magaalada Garowe waxaana la sheegay in xasaanada kala laabteen 8 xildhibaan. kulanka baarlamaanka Puntland waxaa hor yimid xeerlaaliyaha guud ee dowladda Puntland isagoo xildhibaanada ka hor aqriye eedeymo ka dhana 8 xildhibaan kuwaas oo ay ka mid yihiin falal lid ku anshaxa iyo xeerarka golaha sida inay iska hor keeneen golaha dhexdiisa maleegitaanka siyaasado guracan oo ay soo maleegayaan gacmo shisheeye oo ka baxsan Puntland iyo eedeymo kale. intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa cod u qaaday xasaanad kala noqoshada xildhibaanada waxaana la sheegay in 35 mudane ay gacanta u taageen in xilka laga xayuubiyo oo kalsoonida lagala noqdo 3 mudane ay diideen halka hal xildhibaan uu ka aamusay shaqo ka ceerinta xildhibaanadaasi. xildhibaanada xasaanada lagala noqday ayaa waxaa lagu kala magacaabaa 1 xildhibaan Cabdijamaal Cismaan, 2 xildhibaan Cabdiqani Surato, 3 xildhibaan Muuse Jajabsay, 4 xildhibaan Badugaaye, 5 xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre, 6 xildhibaan Saleebaan Faarax, 7 xildhibaan Cabdiraxmaan Dhoor, 8 xildhibaan Maxamuud Axmed Caalin. ka hor kulanka baarlamaanka ee xilka xayuubinta xildhibaanada ayaa waxaa la sheegay inuu fashilmay dadaalo xal raadin ah oo ay wadeen guddiye ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo xal u waayay eedeymo loo haystay xildhibaanada xasaanada lagala noqday. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay sanad guuradii 11aad ee qaraxii ka dhacay Hotel Shamo. Nuuruddin Xasan Ibraahim ayaa warkan ku eegaya. maanta oo kale 3 September 2009 11 sano ka hor waxay ahayd maalin u mudug shacabka Soomaaliyeed kadib markii ruuxii soo miidaamiyay uu isku dhex qarxiyay munaasabad ka soconaysay hotelka Shamo ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaana halkaa ku baxay arday, waalidiin, mas'uuliyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan bulshada oo ka qayb galeysay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhameysatay jaamacadda Banaadir ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Mudane Cusmaan Abuukar Dube ayaa ka hadlay xuska sanad guurada 11aad ee ka soo wareegatay xasuuqii ka dhacay hotelka Shamo ee la beegsaday dad ay ka mid yihiin wasiiro, dhaqaatiir, arday iyo sidoo kale martishaaf kale. wasiirka oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in falkaas lagu xasuuqay dadkaasi uu yahay mid aad u naxdin leh isagoona taabtay in guud ahaanba quluubta shacabka Soomaaliyeed uu aad u saameeyay falkaasi. wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay isla markaana ku taliyay in xasuuqaas aysan gaarin in laga gaarin wax faa'iido ah
balse ay la kulmeen kuwii geystay burbur iyo halaag waxaanu intaa uu raaciyey in xasuuqa ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho 2009 uu dhibaato badan u horseeday shacabka Soomaaliyeed. wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in qarax kasta oo ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya uusan ka hor istaagi doonin horumarka bulshada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in ay awood u leeyihiin sii wadida horumarada ka jira gudaha dalka Soomaaliya. dadkii ku shahiiday qaraxaas waxaa ka mid ahaa suxufiyiin, arday, waalidiin, wasiirkii caafimaadka Qamar Aadan Cali, wasiirkii tacliinta sare Ibraahim Xasan Cadow, wasiirkii waxbarashada Axmed Cabdullaahi Waayeel iyo sidoo kale dhakhtar caan ahaa oo la dhihi jiray Professor Maxamed Aadan oo loo yaqaan Dr. Shahiid. wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay dhacdadaas 11 sano ka soo wareegtay 3 September. إن الله وإنا إليه راجعون. halkan maanta iyadoo ku beegan 3 December 2020 oo ay ka soo wareegtay xasuuqii naxdinta badnaa ee Shamow 3 December 2009 waxaan jecelahay mar kale inaan taxsi qaran halkan aanu ka diro aniga wasiirada kaleba oo aan uga taxsiyeedeyno qaranka iyo qoysaskii iyo ehelkii iyo jaamacadii ay ka tirsanaayeen dhammaantood in marxuumiinta shuhadada Ilaahay u naxariisto samiri iimayna dhammaanteen naga wada siiyo. waxaan joogay Nairobi xilliga dhaawacii waxa la keenay Aga Khan Hospital Nairobi. yani ma dareemi kartaan xanuunka ay Soomaali maalintaas u lahayd iyo dhibaatada dhakhaatiirtii iyo ardaydii wixii badbaaday markii Nairobi la keenay, sida shacabka Soomaaliyeed u gurmadeen oo u gilgisheen ilaa ay yaabeen qoladii dhakhaatiirtu iyo Aga Khan Hospital. afar wasiir oo kamid ahaa wasiiradii ugu waaweynaa aqoon ahaan foolaadka ahaa ee ugu lagu hiranayay dadka soo barbaariyay Dr. Ibraahim Cadow, Waayeel, raggii qiimayn lahaa Qamar, Salabaan Colaad Rooble. codkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa uu u dambeeyay warbixintii Nuuraddiin Xasan Ibraahim. midowga musharaxiinta iyo safiirka Ingiriiska ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Qadar Xuseen Axmed ayaa warkan ku sii faahfaahinaya. xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiyo Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay wadaan qorshooyin xal uga gaarayo khilaafka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo ay magacawday xukuumadda Soomaaliya yeeshay qaar kamid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay diideen. safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Bin Vender ayaa Muqdisho ka bilaabay la kulanka xubnaha musharaxiinta madaxweynaha waxa uu la kulmay xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Cali oo kamid ah musharaxiinta madaxweynaha ee ka soo horjeestay gudiyada doorashooyinka. labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka, arrimaha doorashooyinka iyo gudiyada doorashada oo uu khilaaf ka taagan yahay sida uu sheegay musharax madaxweyne xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Cali. waxaana kulan muhiim ah iyo mira dhal ah aan wada qaadanay safiirka boqortooyada Ingiriiska u fadhiyo Soomaaliya Bin Vender, kaas oo aan isla soo qaadnay arrimo badan oo ay kamid tahay xaaladda guud ee wadankeena Soomaaliya oo uu hadda ku sugan yahay, si gaar ah arrimaha doorashada ee la filayo dhawaan in dalka ay ka qabsoonto, taas oo aragtiyo isku mid ah aan ka qabnay ayuu yiri musharax cusub leh. sidoo kale labada mas'uul ayaa isla soo hadal qaaday si guud in ay muhiim u tahay in la helo doorasho xur iyo xalaal ah wada ogor ah waqtigeedana ku dhacdo kana maran tabasho ka timaado musharaxiinta madaxweynaha ee uu tartanka kala dhaxeeyo musharaxa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeeyna musharax madaxweyne xildhibaan Cabdulqaadir Cusub Cali iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Bin Vender ayaa ka wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa cabashooyinka ku aadan doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeedo gobolada waqooyi, khilaafka gobolka Gedo iyo gudiyada doorashada heer federaal iyo waliba heer maamul goboleed. safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Bin Vender ayaa horay ula kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo la sheegay inuu dhexaadin ka dhex wado madaxweyne Farmaajo iyo waliba musharaxiinta iyo sidoo kale musharax madaxweyne Danjire Daahir Maxamuud Geele. midowga aan idhaahdee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay shirka golaha fulinta ee midowga Afrika. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Dalaal Maxamed Cusmaan ayaa maanta kaga qayb galay aaladda fogaan aragga
kaltanka 21aad shirkan caadiga ahayn ee uu yeeshay golaha fulinta ururka midowga Afrika oo looga hadlay aaga ganacsiga xorta ah ee Afrika iyo fulinta hindisaha midowga Afrika ee 2020 ee aamusinta qoriga. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa muujiyay rabitaanka Soomaaliya iyo shucuubta qaaradda si loo hirgeliyo aaga ganacsiga xorta ah si ay u suura gasho in dalalka qaaradda Afrika ay isweydaarsadaan badeecooyin iyo adeegyo si aan caqabad ku jirin si loo gaaro isdhexgal dhaqaale oo waxtar leh oo macnaheeduna yahay xilli cusub oo iskaashi qaraneed ah. 22 Maarso 2018 ayaa Soomaaliya waxa ay ku ansixisay caasimadda Kigali ee dalka Rwanda laba heshiis oo kala ahaa aaga ganacsiga xorta ah ee Afrika iyo habmaamuuska isu socodka xorta ah ee dadka. gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa amara dul dhigay garsoorayaal cusub oo maanta la dhaariyay. Qadar Xuseen Axmed ayaa mar kale warkan faahfaahinaya. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Baashe Yuusuf Axmed oo maanta ka qayb galaya kulan lagu dhaarinayay garsoorayaal cusub oo kusoo biiraya garsoorayaasha dalka ayaa waxa uu garsoorayaashu kula dardaarmaya in ay si hufan dalka ugu shaqeeyaan. mudane Baashe Yuusuf Axmed xeerlaaliyaha dalka ayaa waxa uu shaaca uu ka qaadaya in garsoorayaashan cusub looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan musuqmaasuq iyo waliba nin jecleysi. waxa uuna ugu baaqaya in mar walba ay si cadaalad ugu shaqeeyaan dalka iyo waliba dadka Soomaaliyeed. maadaama aad tihiin ciddii sharciga keligeed dabaqaysay fasiraysay maadaama aad tihiin waxaa laydinka rabaa markaa ama laynaga rabaa dhammaanteen inaynu isku aragno inaynu hayno mas-uuliyaddii ugu cuslayd ee qof bili-aadmiya loo dhiibi karayay. waxaad tihiin cidda keliyata ee xukumi karta qof inuu naftiisa waayo nafta laga qaado. waxaad tihiin cidda keliyata ee xukumi karta qof xorriyadiisa haysto suuqa maanta joogan xorriyada laga qaado xabsi la dhigo oo noloshiisa inta ka hadhay la yiraahdo xabsigaas buu ku jiraya. waxaad in cidda kaliya tahay qof hanti haysta intuu ka qaado qof kala siin karo. yacni awoodda gacantiina la geliyay iyo mas'uuliyadda maanta aad haysaan saacadda aad dhaarteen laga bilaabo waxa weeye waa mas'uuliyadda intaas leeg. مسؤولية runtii sahlan maaha waa taa cirka iyo dhulka iyo buuruhuba ay diideen ee jaahilnimadeena darteed aynu qaadnay marka waxaynu rabnaa inaynu si dhab ah mas'uuliyadaas u dareeno waxaynu cidda kaliya ee soo celin karta sawirkii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay cidda kaliya soo celin karta waxa weeye waa inaga weey taas baa markaa la inaga rabaa inaynu dabaqno inaynu hogaansano inaynu danta cadaalad oo kaliya ka shaqeyno. halkaad warkaasi duhur kala socotaana dhageystayaal waa raadiyaha wadaag markana akhbaaraadkii kale ee caalamka. baarlamaanka dalka Iiraan ayaa ansixiyay sharciga nuclearka ee dalkaasi. dowladda Iiraan ayaa qaaday talaabo ay uga hor istaagayso baarayaasha qaramada midoobay inay baaritaano ka sameeyaan goobaheeda ama xarumaheeda nuclearka isla markaana lagu xoojinayo kobcinta maadada uraniumta sida uu dhigayo sharciga cusub ee uu meel marinayo baarlamaanka dalkaasi. sharcigaasi ayaa dowladda ku qasbaya in ay dib u bilowdo kobcinta maadada uraniumta oo ay gaarsiiso 20% heerka oo 3.67% ka sareeyo heerkii lagu heshiiyay sanadkii 2015 waa hadii muddo 2 bilood gudahood ah lagu qaadi waayo xayiraadda saaran dalkaasi. madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inuusan raali ka ahayn maalmarinta sharcigaasi. arintani ayaa ku soo beegmayso maalmo kadib dilkii loo geystay mid kamid ah saynis yahanada dalka dhanka nuclearka ugu sareeyo dalkaasi Iiraan. Mohsen Fakhrisadah ayaa jamciyada la soo dhaafay lagu qaarajiyay meel u dhow caasimada Tehran. dowladda Iiraan ayaa ruuxa ay rumaysan tahay in Israa'iil iyo kooxo mucaarada oo dibad joog ah oo reer Iiraan ah ay ka dambeeyeen dilka qabiirkaasi. Fakhrisadah ayaa dowr muhiim ah ka ciyaarayay barnaamijka nuclearka dalkaasi Iiraan balse dowladda dalkaasi ayaa ku adkaysanayso in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabdoon. Iiraan ayaa waxaa saarnaa cunaqabatayn ay reer galbeedku ku soo rogeen kuwa oo loola gol leeyahay in lagaga hor istaago in ay samaysato hubka nuclearka. warkii oo aad kala socoteen doornimada maanta raadiyaha wadaag waa inaga inta